This is going to be a joke, 1 minute. Don't take it serious. waxaan rabaa inaad ii ogolaataan hal daqiiqo oo kaftan ah I was oo with aydan my ka friend. dulqaadanin waxaan la He joogay asked me, you saaxiibkayga have been in Somalia for 6 years. waxaad Soomaaliya joogtaa muddo 6 sano ah Which clan are you? qabiilka ayaa tahay I told him, waxaan u sheegay isaga which clan is the lowest? oo aan weydiiyey marka hore inuu ii sheego qabiilka ugu He did not tell hooseeya me the name, but he told me it is like 0.5. saaxiibkayga iima uusan sheegin wax magac lagu tilmaamo taa beddelkeeduna waxa uu ii sheegay I wanted to say I'm not 0.5 oo ah kan ugu yar qabiil ahaan Soomaaliya That time I wanted to say I'm not 0.5. isla waqtigaas anigu waxaan rabay inaan iraahdo kama mid ihi 0.5 maxaa yeelay anigu waan weynahay waan I dheerahay don't know. I don't know 0.5. It is because of the size I don't know there. ma aqaano waxaan ku qiyaaso cabir ahaan sida uu u eg yahay 0.5 But I asked him a question. laakiin aniga ayaa isaga su'aal I weydiiyey can choose a clan hal qabiil ayaa dooran karaa haddii aad ii sheegtid waxyaabaha fariiga lagaga helayo of that clan. qabiilkaas Like when they are bringing their electricity bills, they go every family. ma jirto maqaayad cunto fari ah dadkeeda siiso si la mid ahna ma jiro dukaan qabiilkiisa dhar fari ah siiya sidoo kale ma jirto shirkad iibisa gawaarida oo kolka aad u tagtid qabiil ahaan gaari fari ah ku siin karta saaxiibkayga weydiimahaasi dhammaantood waxa uu iigu jawaabayaa maya haddii aadan lacag haysan wax fari ah heli maysid kadib waqtigaas saaxiibkayga waxaan u sheegay maadaama aysan wax sidaas ah oo aysan ku kala duwanayn aysan jirin 0.5 iyo qabiilada kale anigu inaan ahay 0.5 I asked him another question. su'aal kale ayaa isaga Which clan is aan going to Jannah? weydiiyey oo u dhignayd qabiilkee ayaa janno aadaya Told me, teacher, what are you asking? wuxuu igu yidhi macalin maxaa waaye waxa ay Who weydiinaysa you are is very important. macnaheedu waxaan ula jeedaa What you muhiimadda have. waxay tahay qofka aad tahay iyo waxa aad haysatid haddii aad dhakhtar tahay qabiilka aad ka soo jeedid sababtiis dhakhtar umaadan noqon ee waxaad baratay oo iskuulka u aaday ayaa wax ku noqotay If you are a doctor, you are not a doctor because you are tall, short, black, white. No, you are a doctor because of what you have in your head. dhakhtar haddii aad tahay inaad dheer tahay gaaban tahay ama caato tahay kuma aadan noqon dhakhtar ee waxaa dhakhtar ku noqotay wax maskaxdaada ku jiraan Why ayaa am I wax ku talking about noqotay. these things? sababtan waxa uga hadlayo waxay tahay Somalia is developing. Soomaaliya waa ay I koraysaa have been anigu here waxaan 6 Soomaaliya years. joogay 6 sano qaabka ay u I korayso know waan how it is aqaanaa growing. oo aan ula jeedo 10 sano kadib haddii If it sidaan continues kusii like socoto this, haddii aan la idmo after 10 waxa ay years, ka sii horumaraysaa inshallah, it wadamo will be badan better oo than many Afrikaan countries ah in Africa.